qaraxa waxa uu ka dhacay maqaaxi ku taala inta u dhaxaysa hoteelka Weheliya iyo isgoyska dabka ee Muqdisho dad badan oo ka mid ah kuwii maqaaxida ku jiray ayaa dhintay kuwa kale oo banaanka marayna sidoo kale waa ay dhinteen intii aan goobta ku sugnayn waxaan arkaynay meydad qaarkood jirkoodu go'go'ay oo halka qaraxa uu ka dhacay laga soo saarayo dhaawaca sidoo kale ma jiro tiro rasmi ah hase ahaatee gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa durba goobta gaaray oo daabulay dadkii ku dhaawacmay qaraxii halka ka dhacay goobjoogayaasha iyo dadka ka agdhow halka qaraxu ka dhacayna waxa ay sheegayaan in qaraxa uu ahaa mid gaari loo adeegsaday aniga iyo saaxiibo kale meeshana wada ogtiin koox wariyaalan ku fariisan jirnay anagoo tiim badana marka alxamdulillah laba saaxiibada ayaa kamid ahaa baa ku harsanaa maqaaxida oo qadaynayay qaraxiisaas ku dhacay anagoo marka shoog baa runtii nagu dhacay oo ma sheego qaraxu sidoo u dhacay in yar ka bacdi ma soo baraarugnay meeshii baan ku laabtay saaxiibadii labadii kamid waa dhinteen Allah yarxamur raahimiin qaraxu ka dhacay marka waa maqaayadii adigu aad ka qadaynay maqaaxidii aan ka qadaynay agaga horteeda waa marka alxamdulillah anaga Ilaahay waana badbaadiyay runtiina dhacdo waxay ahayd aad wuxun ka bacdi labadii saaxiibada waa ku dhinteen 5 kale meydana waan arkay dhaawaca tiraahan ma sheegi karo aan meydkooda arkay labadii saaxiibada ayaa geeriyooday ma bahda saxaafadda kamid ahaayeen maya saaxiibo caadi ahaayeen oo kamid ah dhalinyarada aqoon-yahaninta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho jooga dadka dhinta marka kulli waxay maqaayada gudaheeda ku sugnaa ma ahayn masadad banaanka ku sugnaa dad banaanka ku sugnaa way ku jireen dabcan kulli sababtooda waxaan way qarxeen la saaxiibada baan garanayay inay gudaha ku jireen oo labadooda mid ka saaray laakiin shantan kale banaanka bay kala kulantay qarx kala kulantay waa ana arkayba ana xaqiijiyay naxdintii ka bacdi markii xoogaa aan kala dignay oo qalbigu noo digay oo shoogii naga baxay baan gartay waaba raadiyay taargedan raadiyay wajigooda aan arkay runtii nin kamida waaban sawiraan ka qaatay dhimashada waa qof marka geeri dhaawac ma cadeyn karo wallahi ama min ambalaas daqiiqada ka bacdi baa timid wala daldalay dadkii waxna gacanta dadka bajaaj baa lagu qaaday wax badan ambalaas ta qaaday alxamdulillah ma sheegi karo ma cadeyn karo qarax marka gaari qarxay ma xasuusan kartaa hadii maya gid meesha waan ka dhaweyn laakiin wax qarxay qaraxa iyo dhulka aan ku dhacnay iyo dhibaatadii u bisaan ogahay alxamdulillah